kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijkani wararka iyo warbixinada ugu waaweyn oo hadaha oo kale aad ka daawan jirteen warqaad tiyub waa 26 bisha 12 sanada 2018 qodobada dunida ugu waaweyn ee aad barnaamijkani ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xildhibaano ka soo jeeda xisbiga Republicanka oo ka soo horjeestay in madaxweyne Trump uu difaaco dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga safarka MBS ee wadamada Carabta oo lagu fasiray mid lagu qaboojinayo xiisadda Carabta iyo Israa'iil waxaan sidoo kale barnaamijkana idinkuga haynaa Israa'iil oo ka shaqeynaysa yagleelida xiriirka diblomaasi oo ay la yeelato wadamada Suudaan iyo Bahrain hogaamiyaasha midowga Yurub oo si dhaqso badan ku ansixiyay heshiiska Britain ay uga baxayso ururkaasi waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona Donald Trump oo weerar ku qaaday mar kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron Ruushka oo weeraray maraakiib Ukraine ah oo marayay biyaha badda madow iyadoona Moscow eedayn u jeedisay Mareykanka iyo Yurub qodobadaas iyo kuwa kale ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan aynu ku bilowno barnaamijkeena ee xildhibaano ka soo jeeda xisbiga Republicanka ee wadanka Mareykanka ayaa ka soo horjeestay in madaxweyne Trump uu difaaco dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya xildhibaanada Congress-ka gaar ahaan kuwa matala xisbiga Republicanka ayaa sii wada dhaleecaynta ay u jeedinayaan madaxweyne Trump ee ku aadan difaacidda uu sameeyay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman kaas oo CIA-da Mareykanku rumaysan tahay inuu bixiyay amarka lagu dilay wariye Jamal Khashoggi kuma raacsani in uu madaxweyne Trump difaaco ninka dilkaas lagu tuhmayo Mohammed bin Salman senator Mike Lee ayaa sidaa ka sheegay barnaamijka axadda la daawado ee MBC ka baxa ee la yiraahdo Meet the Press wuxuu sidoo kale intaa ku daray in sirdoonka warbixinta qiimeynta ah ay hayaan uu sidoo kale isagu arkay waxaana uu sheegay in uu aaminayo indhihiisa waxa uu ku arkay oo ah in Mohammed bin Salman uu bixiyay amarka dilka wariye Jamal Khashoggi senator Johnny Ernest oo isaguna la hadlay CNN-ka barnaamijka la yiraahdo State of the Union ayaa waxa uu garawsaday in Sacuudi Carabiya ay hadda wajahayso xaalad khatar waxaana uu tilmaamay in Mareykanku aysan u habboonayn in xilligan uu taageero wadan lagu eedeynayo inuu galay xadgudubyo bini'aadanimo iyo in dhaxal sugihii wadankaas uu dil shirqool ah u maleego suxufi isaga ka soo horjeeda taas oo sheegay inay ceeb ku tahay Washington si kastaba madaxweyne Trump ayaan isaga oo wax marmarsiyo ah sameyn waxa uu si toos ah u difaacay dhaxal sugi Mohammed bin Salman iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya haddaynu fiirno dalka Turkigana booliiska wadanka Turkiga ayaa wada howlo baaritaano oo ay ka wadaan magaalada lagu magacaabo Yalova halkaas oo la sheegayo in howlo la xiriiro baaritaan salka ku haya dilka wariyaha reer Sacuudi ee Jamal Khashoggi ay ka wadaan booliiska wadanka Turkiga sida ay soo warinayso warbaahinta qaranka wadankaasi booliiska ayaa la sheegay in maanta Isniina ay baaritaano xoog leh ku hayaan xaafado halkaas dhaca kuwaas oo lagu tuhmayo inay ku sugan yihiin dad xiriir la lahaa iyo waliba meydka wariye Jamal Khashoggi qayb ka mid ah oo la tuhmayo in halkaas uu yaalo Khashoggi oo ahaa wariye reer Sacuudi waxna ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ku leeyihiin magaalada Istanbul 2 bishii October waxaana kiiskiisu uu noqday mid aad u dheeraaday iyadoo booliiska wadanka Turkiga iyo madaxda Turkiga ay mas'uuliyad weyn iska saareen sidii meel loogu soo ogaan lahaa dilka wariye Jamal Khashoggi dhaxal sugaha boqortooyada wadanka Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa inta badan loo tiirinayaa inuu amray dilka wariye Jamal Khashoggi dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa soo saaray warqad uu ku cafinayo muwaadinka reer British ee ardayga ah ee la yiraahdo Matthew Haggis kaas oo xukun xabsi daa'in ah dhawaan lagu riday Haggis oo 31 sano jir ah ayaa cafiskan loo fidiyay iyada oo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta laga xusayo maalinta cafiska qaranka sida warbaahinta wadankaasi ay soo warisay mas'uuliyiinta wadankaas ayaa ku dhawaaqay in Haggis loo fidiyay cafis isla markaana uu qayb ka ahaa boqolaal dad oo cafis loo fidinayay madaxweynaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaana soo saaray warqadda cafiska isagoo oo ku afinaya boqolaal uu ka mid yahay muwaadinka reer British ee la yiraahdo Matthew Haggis ayaa lagu xukumay xabsi daa'in markii lagu eedeeyay in howlal basaasnimo uu ka waday dalka Isutaga Imaaraadka Carabta dhanka kale haddii aynu fiirino safarka MBS ee wadamada Carabta ayaa lagu fasiray mid lagu qaboojinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Carabta iyo Israa'iil Carabta ayaa intooda badan waxay u arkaan wadanka Israa'iil inuu yahay mid aan jirin oo markaasi gacan ku rimis ah iyaga oo intooda badan wax xiriir aanu la lahayn laakiin dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa socdaalkiisa lagu cadeynaya in uu macnaha uu xambaarsan yahay oo yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhaxaysa إسرائيل
iyo wadamada carabta intooda badan. cabdulbaari al cudwaan oo ah tafatiro sare oo ka tirsan majalada la yidhaahdo al-ra'yi al-yom ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax aan mugdi ku jirin in maxamed bin salmaan ujeedada u socda ay tahay fariin uu ka wado madaxweyne Donald Trump oo ah in wadamada carabta intooda badan ay ogolaadaan in ay xiriir diblomaasi la sameystaan Tel Aviv. Israa'iil ayaa xiriir diblomaasi oo buuxa waxay hadda la leedahay oo kaliya labada wadan ee Carabeed ee kala Masar iyo Jordan, waxaana ay dhawaanahan doonaysay in ay xiriirkeeda intaas ka sii ballaariso. isla wararka maxamed bin salmaan iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya ku saabsan ayaynu ku guda jirnaaye. Sacuudi Carabiya dhaxal sugaheeda MBS ayaa gaaray wadanka Bahrain booqashada uu ku marayo wadamo badan oo Carabeed. maxamed bin salmaan ayaa lagu soo dhaweeyay Bahrain isagoo oo safarkan uu markaas imaanayo dilkii wariye Jamal Khashoggi xilli uu ninkan ku eedeysan yahay. dhaxal suga maxamed bin salmaan oo sidoo kale warbaahinta reer galbeedka ay u taqaano MBS ayaa waxa uu ka degay caasimada Manama Axadii, waxaana uu si weyn qaabilaad uga helay boqor Xamaad bin Isa al Khalifa, waxaana lagu qaabilay boqortooyada qasriga ay degantahay la yiraahdo Shaqir, halkaas oo uu soo wariyay telefishinka Bahrain in si heer sare lagu soo dhaweeyay. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loola dagaalami lahaa argagixisada. maxamed bin salmaan ayaa khamiistii booqday Abu Dhabi oo caasimad u ah dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana uu xiriir dhow kala dhaxeeya wadanka Sacuudi Carabiya, waxaana ay xulafo ka wada yihiin dagaalka ka dhanka Iiraan iyo Xuutiyiinta ee ka soconaya wadanka Yemen. dhanka kale haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa sheegay in hogaamiyaha Jad booqashada uu ku yimid wadanka Israa'iil ay muujinayso in xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamo badan kala dhaxay doono Israa'iil oo isfurfuri doono. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha wadankiisa booqday ee Jad Idris Deby in tani ay ka dhigan tahay in ay Israa'iil furfurayso xiriirka diblomaasi ee mustaqbalka la dhaxeeya wadamo badan oo adduunka ah. dhanka kale haddii aynu fiirino Israa'iil ayaa waxay iyaduna ka shaqaynaysaa yigleelida xiriir diblomaasi oo ay la yeelato Suudaan iyo Bahrain 2 sano kadib markii Suudaan ay jartay xiriirkii Tehran kala dhaxeeyay. wargeyska reer Israa'iil ee la yiraahdo Haaretz ayaa soo warinaya in Israa'iil ay hadda ku boorinayso Mareykanka iyo wadamada kale ee xulafada la inay kala shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka wadanka Carabta ee Afrika dhaca ee Suudaan la yiraahdo, waxaana ay Israa'iil sidoo kale wadankaas kala shaqeysay sidii loo yareyn lahaa cadaadiska iyo cunaqabateenada xoog leh ee uu Mareykanku ku hayo wadanka Suudaan. Israa'iil ayaa doonaysa in xiriir kala dhaxeeyo Suudaan uu aad u soo hagaago tan iyo 2009 markii ay maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ay soo saartay warqad lagu soo xirayo madaxweynaha Suudaan Umar Xasan al-Bashir, kaasoo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah wadankaasi inuu ka geystay gaar ahaan gobolka Darfur, ayaa waxaa cadaadis ku sii kordhayay jamhuuriyadda wadanka Suudaan. haddii xiriirka u dhaxeeya Israa'iil iyo sidoo kale Suudaan uu saldhigto oo uu markaasi sameysmo, waxa ay suurtagal ka dhigi doontaa in mas'uuliyiin badan oo Israa'iil ka socda ay booqdaan wadanka Suudaan. wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa qiimeyn ku haysa arrinta Suudaan, waxaana ugu dambeyn ay gaari doontaa in xiriirka labada dal la yagleelo. waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda sheegtay in Iiraan iyo Suudaan xiriir ka dhaxeeyo uu go'ay 2015. Iiraan ayaa u aragtay Suudaan inuu ahaa marin ay gasa uga gudbiso hubka si ay kooxda Xamaas u taageerto. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeennii wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka. markana qaaradda Yurub, madaxweyne Trump ayaa weerar ku qaaday mar kale madaxweynaha Faransiiska ee Emmanuel Macron. Donald Trump ayaa weerar culus ku qaaday Emmanuel Macron, madaxweynaha Faransiiska, isagoo oo daliil u soo qaadanaya rabshadaha sii ballaaranaya ee ka soconaya wadanka Faransiiska, kuwaasi oo galaya toddobaadyo badan oo wadankaas xaaladiisa ay qasmayso. waxa uu sheegay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump in looga baahan yahay madaxweynaha Faransiiska in uu wadankiisa xalliyo dhibaatada ka taagan. waxa uu ku weeraray dhigiisa Faransiiska madaxweyne Donald Trump barta uu Twitterka ku leeyahay, isagoo ku dhaleeceeyay in midowga Yurub aanu hadda u baahnayn in ay wadamo kale la tirsadaan, balse loo baahan yahay in ay dhexdooda xaliyaan. waxa uu madaxweyne Trump sidoo kale qeexay in waqti badan ay midowga Yurub ka faa'iideysan jireen ganacsiga Mareykanka, balse hadda loo baahan yahay hadda la taagan yahay xilligii ay dhadhamin lahaayeen qaraarka. madaxweyne Trump wuxuu sidoo kale sheegay in fikirka madaxweyne Macron oo horaan soo jeediyay ee ah in la sameeyo ciidamo midowga Yurub ay yeeshaan aan loo baahnayn, taabadelkeedana Yurub looga baahan yahay in ay iyagu samaystaan mashaakilaadka dhexdooda wixii ay ku xalin lahaayeen.
geesta kalena hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa si dhaqsiyo badan ku ansixiyay heshiiska Britain ay uga baxayso ururkaasi. Heshiiska ay kaga baxayso midowga Yurub Ingiriiska waxaa ansixiyay hogaamiyaasha reer Yurub sida uu shaaciyay madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk. Hogaamiyaashan oo gaaraya 27 ruux ayaa taageeray heshiiska Britain ee qabyo qoraalka ah ay kaga baxayso Yurub inteeda kale kulan weyn oo ka dhacay magaalada Brussels kaasi oo socday wax ka yar saacad. Tusk ayaa sabtidii ku dhawaaqay in heshiiska qabyo qoraalka ah la ansixin doono kadib markii ay Spain cadaysay mowqifkeeda ku aadan gobolka Gibraltar. Heshiiska waxa uu u baahan yahay in ay meel mariyaan baarlamaanka Ingiriiska inkastoo xubno badan oo baarlamaanka kamid ah ay ka soo horjeedaan. waxaa la filayaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub 29 bisha Maarso sanada 2019. qaybihii dambe ee barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka ayaan isla soo gaarnay. Ruushka ayaa waxa uu weerar ku qaaday maraakiib Ukraine laga leeyahay kuwaas oo ay saarnaayeen shaqaale waxaana uu markabkaasi marayay badda madow. Ruushka ayaa rasaas xoog la huwiyay 3 markab oo Ukraine ah oo marayay badda madow oo u dhow gobolka Crimea iyadoo xiisada u dhaxaysa labada dal ay sii kordhayso. Maraakiibtan ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale ay qabsadeen ciidamada badda ee wadankaasi Ruushka. waxaa sidoo kale laga baqdin qabaa in dagaal uu halka ka dhaco. ciidamada badda wadanka Ukraine ayaa sheegay in maraakiibta dadkii sanaa oo ay kamid yihiin 6 shaqaale ah ay ku dhaawacmeen markii iyaga oo maraya badda loo yaqaan Azov ay weerar ku soo qaadeen ciidamada Ruushka sida ay hadalka u dhigeen. Ruushka ayaa diyaaradiisa dagaalka gaar ahaan kuwa qumaatig u kaca waxa uu dul heehaabinaya badda Azov isagoo oo ka hortagaya weerar laga baqdin qabo in Ukraine ay soo qaadaan. madaxweynaha wadanka Ukraine Petro Poroshenko ayaa ku dhawaaqay ama ku baaqay kulan degdeg ah oo ay golihiisa wasiirada isugu yeeraan taas oo looga hadlayo xaaladda ka taagan badda madow. waxaa sidoo kale laga baqdin qabaa in arrintan ay soo farageliyaan NATO iyo midowga Yurub oo gacan saar la leh wadanka Ukraine. isla wararkaas aynu ku guda jirnay Ruushku wuxuu ku eedeeyay Trump iyo midowga Yurub in maraakiibtaas ay weerareen kuwa Ruushku ay iyagu soo direen. Russia ayaa ku eedeynaysa Ukraine iyo sidoo kale midowga Yurub iyo Mareykanka in ay abaabulayaan in ay qasaan xiisada gobolka Crimea. waxa ay waaxda difaaca ee wadankaasi Ruushka ay sheegtay in Kiev iyo xulafadeeda ay doonayaan in ay carqalad ku bilaabaan xaaladda degan ee badda madow iyo sidoo kale badda Azov. waxa ay Ruushku hoosta ka xariiqeen in marnaba aysan ka gamban doonin dagaal kasta iyo faragelin kasta oo qaawan oo lagu soo qaado. Ruushka ayaa gacan weyn ku leh xaaladda ciidan ee badda madow isagoo oo sidoo kale aad ugu diyaarsan dagaal kasta oo lagu dhawaaqo. ugu dambeynna taliyaha ciidanka badda ee wadanka India ayaa isniintan booqasho 3 maalin waxay uga bilaabatay wadanka Ruushka. waxa uu wada hadal la yeelan doonaa saraakiil Ruushiyaan ah iyaga oo ka wada hadlaya xiriirka labada dal ka dhaxeeya inkastoo ay Washington ugu hanjabayso New Delhi inay joojiso xiriirka ciidan ee ay la sameynayso Moscow. Admiral Sunil Lamba ayaa waxa uu tagi doonaa magaalada St. Petersburg halkaas oo uu qorshu yahay in uu kulan laba dhinaclaha la qaato dhigiisa Admiral Vladimir Korosov. labada nin waxay ka wada hadli doonaan sidii ciidamada badda ee labada dhinac ay isku kaashan lahaayeen loona xoojin lahaa kuwa India. booqashada uu ku tagay taliyaha ciidanka badda wadanka India Russia ayaa daba socota booqasho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ku tagay India halkaas oo ay ku saxiixeen heshiis $5 bilyan ku kacaya oo uu la galay ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi kaas oo India lagu siin doono gantaalaha Ruushku sameeyaan ee S-400 oo ah kuwa difaaca cirka. barnaamijkeeni wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka oo aad ka daawanaysa warqaad TV intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. dhammaanteen isku duwan waxaan leenahay daawadayaal nabadgelyo.